kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijyadeedka barqanimo ee warbaahinta Soomaali Vlogger Media qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan barnaamijyadeedkeena waxaa ka mid ah Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo weerar toos ah ku qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubnaha kale mucaaradka xilli uu hadallo adag ka jeediyay Caashe Sharaf xalay ka dhacday Muqdisho waan soo qaadan doonaa qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijyadeedkeena waxaa ka mid ah ciidamadii uu ka aaminayay Cabdicasiis Lafta Kareen oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya kana mid noqday ciidamada ku sugan magaalada Baydhabo haddaba waxaad daawan doontaan maxay tahay ballanqaadka rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya u sameysay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed oo ku soo biiray dowladda waan soo qaadan doonaa qodobada kale waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay qaadi doonto tallaabooyin sharci ah oo ka dhan ah shirkado iyo shakhsiyaad lagu eedeeyay inay si sharci darro ah uga faa'iideysanayaan kheyraadka macdanta dalka haddaba waa kuwee shirkadaha iyo shakhsiyaadka dowladda ay u hajamtay waa soo qaadan doonaa waxaad kaloo daawan doontaan golaha mustaqbalka Soomaaliya oo u digay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fariin adag u diray ciidamada dowladda haddaba waa maxay fariinta ay direen waan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobada kale nagu soo kordhaya daawadayaal ku daawan doontaan barnaamijyadeedka barqanimo ee warbaahinta Soomaali Vlogger Media aad ugu cusub tahay daawade nagu soo biir oo subscribe saaro channelka haddii aad hore nala joogtana waad ku mahadsan tahay waxaan ka codsanaynaa muuqaalka like saar sina share karee